xasan shahar oo ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay shirguddoonka cusub ee ay doorteen golaha wakiilada ee Somaliland. waxaa lagu baaqay gudoomiyaha golaha wakiilada ee cusub Cabdirasaaq Khaliif Axmed in uu soo diyaariyo xeerkii caasimadda Hargeysa. xasan shahar oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa hadaladiisa ka mid ahaa: shaqa loo baahayay maanta shaqaynu u baahnay waxaynu arkaynay dastuurkeena in meelaha qaarkood uu madow kaga jiraynu arkaynay golihii hore waxaynu islahayn waxaas iyo wax kale oo farabadan oo ku jira inay iftiimiyaan bay ahayd laakiin may dhicin. maanta waxaynu u baahnay golaheena baarlamaanka ee soo baxay inuu golo shaqeeyo noqdo, in xeerarka iyo meelaha madowga ku jiro dhanna inay noo cadeeyaan si mustaqbalkeena dambe aanay taasoo kale u dhicin. saaxiibkay maanta xafladda sameeyey Rambo waxaan leeyahay waad ku mahadsantahay hambalyo. xildhibaanadana mujaahidka weyn ee Faratoonna iyo labadiisa ku xigeenba hore u sii socda, dib loo jeesan maayo, hore loo soconaya, hore ayaa loo soconaya. hoggaanka cusub ee la doortayna waxaa loo baahan yahay inuu xildhibaanada baarlamaanka isku hayee hadduu isu qaato hoggaankaasi isu qaataan xusbiyey inay yihiin ama cid guulaysatay isu qaataan oo xildhibaanadii baarlamaanka hoggaankoodii iyo midayntoodii ay ku shaqayn waayaan, waxay noqon doontaa mas'uuliyiin la doortay oo guuldarraysta bay noqon doonaan. inay ka dhowrsadaanna iyaga ayaa looga baahan yahay, inay qaranka iyo ummadda iyo dadka soo doortay iyo xeerarka hor yaalla ee loo baahan yahay inay ka shaqeeyaan. annagu gaar ahaan maadaamaanu nahay gobolkii Maroodijeex waxaanu ka sugaynaa baarlamaanka xeerkii caasimaddaanu ka sugaynaa. dantii ummaddan ee ku noolad gobolka Maroodijeex oo majority-baa eegaysa inay noo shaqeeyaannu eegaynaa. waxa weeyaan guddoomiyaashii ka horreeyey waxaanu ku dhaliilaynay haddaannu reer Maroodijeex nahay waa xeerka caasimadda way noo bilaabantay, waananu ku eegaynaa guddoomiye, waxaananu kaaga baahannahay inaad xeerkii caasimadda miiska soo saarto ood ugu soo horraysiiso. dadweynaha reer Hargeysa way ku eegayaan, waa salka lagu fadhiyo way caasimaddu. waxa weeyaan xeerka caasimadda waanu eegaynaa, waanu u midaysannahay, waxaananu doonaynaa in laga midho dhaliyo haddii ilaahay yidhaahdo. Somaliland baa guulaysatay, guul baan leeyahay. intaasaan ku soo warnaya. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cabdiqaadir Maxamed Xasan, Ariel TV, Hargeysa.